Tell my brother drip like paddling pools or waterfalls. It's all cool, it's all cool. T-bone whip, don't stool, man ain't no fool. Man stay focused, keep my eyes on the ball. Tell me what rules. Jaden Smith waxa uu dhashay 8 June 1998 wuxuuna ku dhashay wadanka Mareykanka waa jilaa caan ah isla markaana ku caan baxay filimka loo yaqaan The Karate Kid oo soo baxay sanadkii 2010 filimkaasi uu la waday jilaaka caanka ah Jackie Chan Jaden waxa uu jilay filimo badan waxaana kamid ah filimada oo jilay filim loo yaqaan After Earth ee isla wadeen aabihi oo aadka caanka u ah William Smith filimkaasi oo soo baxay sanadkii 2013 Jaden waxa uu kale oo yahay rapper asagoo heesta ku caansan ee uu rapka saaray loo yaqaano Nafsi Nafa oo isla qaadayeen heesaha caanka ah Justin Bieber Put your hands up, now he's bigger than me, taller than me, and he's older than me, stronger than me, his arms a little bit longer than me, but he ain't on a JB song with me, I be trying to chill, they be trying to sell with a thrill, no pun intended, was raised by the power of will, Black Luke with the force, and push comes to shove, like Kobe in the fourth, Ice One with love, gotta be the best, and yes, we're the flyers, like David and Goliath, I conquered the giant, so now I got the world in my hand, on board the 2 stars on the moon, while in a dream. I will never say never. I will fight till forever. Jaden Smith lacagtiisa waxa lagu qiyaasay $8 milyan. Jaden waxa uu ciwaano ku leeyahay baraha bulshada ku kulantay Facebook iyo waliba Twitter-ka waxayna taageerayaashiisa Facebook gaarsiisan yihiin 10 milyan oo qof halka Twitter-ka ay yihiin 8 milyan oo qof filimkiisii ugu horeeyay wuxuu soo baxay sanadkii 2006 filimkaasi oo lagu magacaabo The Pursuit of Happiness Jaden waxay dunidu ku tilmaamtay negative philosopher sababta keentay ee tahay xigashooyinka xaqiiqda ku fadhiya oo ku baahiyay barihiisa Jaden wuxuu ku guuleystay jaa'isadda Teen Choice Award iyo waliba jaa'isooyin fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. Tawadal barnaamijka waxaan